حاجة كل رصي خلاص عاد حق من شفتي أرضي محل جاي شفتي سكولي معاه سكولي معامد محل كانوا قمن شفتي ما أدري نواها مساجد مؤذن كاهي وان قرطي محل تبيسه هذا يا محل تبيسه صاحب ضي يوم معلك إحنا نحكي magaalada laascaanood baan maartaa intaasoo sano la muddo 25 sano aan joogay oo midkii aniga aan ku dhalay baa ku arooso ku wax dhalay waxaan ku dhistay laascaanood حق من شفتي runtii waan ka shaqayn jiray laascaanood كل رصي ilaa 5 sano Sacuudiga deganaa اوكي maxaa ka qaban jirtay laascaanood Sacuudiga loo joogo ka shaqayn jiray 15 sano maxaad qabanaysay wastaad baan ahaa waxay ahayd magaalo aan ku dhashay oo aan koray aan wax ku bartay oo anigu aan ku kursiday bay ahayd waxaan ku noolaa magaalada laascaanood haye midoo maxaakiintii baan tegey haye ilaahay ma kan meeshaan joogo haye doona ayaan baan ku dhalay haye waa la iga garanay qof caan ah baan ahay haye hanti baa meeshii ka taalo xoolaa iga yaala meerad baan ku haystay qof la garanayo caan ah baan ahaa qof qaadole baan ahaa dal iyo dibad waa la iga garanaya mii magaalo la iga garanaya maxay ku dhalatay laascaanood mش aad baa u xumaa in laascaanood laga soo dhacay laascaanood baa laga soo barkiciyay dhibaato fara badan baa nala geystay hantideennii iyo alaabteennii iyo adduunyadeennii meeshaan lagu soo reebtay waa nala soo afduubay waxaa nala yidhi waa nila soo wareysanayaa soo bax alaabtiinii wixiina waa u soo noqonaysaa iyadoo tahay 12 kowdii habeenimo baa gurigeenna lagu soo dhacay islaamooyinka guryaha lagu jabinayay qof kasta xaafadooda lagala soo baxay meel corona baan la geeyay oo lagu daadiyay ma garatay aad baan la garaacay maalintii cid biinas cunto iska dhaxta cid biinas samala hooyooyinkii baa la garaacay oo waalidkii caruurtiina meesha lagu garaacay Soomaaliya dhawaato weyn bay naga soo gaarsiisay marka garoonka la geeyay waxaan wax aad u farxay macal gabar baa ku jirtay mataano wadatay meesha ku dhashay waliba iyadoo mataano wadatay ma garatay joojiyada laba sabuul baxdaraadiga u dhiman dhimatay walaaya ma garatay oo isbitaalka loo la cararnaa waa dhimatay baa maqnaa tuu sheegi karno ma garatay meesha si xun baa dadka loo galay si fool xumo ah anigu xanta iga maqan xoolaa iga maqan gaari baa ii yaala fartile waxaa ii yaala 12 nafaari baa ii joogay ilmaa iga maqan anaa dar ciyaalkayga wiil 20 jir baa iga maqan wiilkayga ayaan waad baan aroosay gurigiisii hantidiisa sidiisii baa u yaalay gabadhiisii baan dar soo kaxay aan ku samayna ma laha waxaanaan muddaana noo qabta waxaa liigu yidhi ilmahaad sheegaysid laguguma tirgelin raaf baan kugu wada dantayda waxay ahayd xalayna go'aan waxaan ku gaaray inaan madaxa idinka wada jiro haddeedna go'aankaygu wuxuu noqday inaan idiin raro ilmahaad ka sheekaynaysa meesha ma yaalaan meesha gacdaha gaari kor qasab baa gaari laygu soo saaray maxaad tabanaysaa bismillaah waxaan tabanahay waxaan ka sheekayn karaa maabaab haye waxaan aan sheegi karaa taa haba iridii lama qaadi karaba daaban lahaa daabkii waa la dhacay gurihii waa la dhacay aniga caruurteesaana wada qaaban lahay dakharkii leegu dhifto waa kaa dhiigiis waa kaa allahu akbar waa kaa haddaa madaxeega neetusana waaba yaabaysa ganacsato baan lahay marag baan lahay dhuxul baan dejisanay 6 nooc oo erey baan lahay guryo baan lahay dad xaas ee baan lahayn oo maarta dad sahal ku kacayo dhadheeshas ku kacayo ma ahan xoolo way ii yaaleen 9 neef oo ari ah oo mindi la wada geliyay baana la sheegay ma fahanta dadkaasi dawladdaasi waxay noola dhaqantay si xadka ka baxsan oo bini'aadanimo ku jirin dadka qof muslim aan lagu kicin gaalka kuma dhaqmo sida hantidayadii baa taala oo intaasoo sannadood aan shaqaysananay dad baa hadeer carruurahoodii jiraan dad baa hadeer nala soo hadlayo carruurahoodii halkaa jooga marka la socdo iska tagnaatin cid waxaan dhaajita ma lahayn waxaan igu sameeyay malaa dhulbaanta maanta guul baan ugu haya laakiin muuse bixi maanta guul uguma haya Somaliland dhibaato xoog leh bay noo geysay dayaxay turjuman kaga soo tagno dhar ma haysto koba ma haysto waxaan guntuna ma haysto gurigayga adduunka ay weyda waxaa dhacay Somaliland baan soo raaftay ooygayna isagoo buuhaan ka soo tagnay arigayna isagoo buuhaan ka soo tagnay hantadayna helay Somaliland baan ugu soo tagnay alxamdulillah rabbil aalamiin qolkayna muddo baan imaanay waan soo dhaweeyay hol baan helnay wareer aamus waa ka baxnay qofkayna hadda diibinayna ما شاء الله qofka gratis baan ku hadalnaa marka intaan lagu soo taxeelay koor
dadka reer laascaanood say isku ahaydeen aad iyo aad baan soo wacneen dad wanaagsan ma ahayn wanaagsan baa ahayn kuwaasay raafay ma lahayn laakiin markii dambe waa laga xoog badiyay aad iyo aad shacabka Puntland iyo dawladda Puntland aad bay noo gacan qabatay aad bay noo soo dhaweysay aad iyo aad bay mahadsan yihiin dadkii islaamaanna way talooken ayay tiindooyin dhisan ayay ari u qaleen ayay biskuud iyo sharaab iyo balaayo wax kasta ka dharjiyeen waxaan leeyahay mahadsan yihiin kun jeer weligood waxaan u rajeynaya calankooda inuu kor ahaado xagee ku dhalatay ascaanood maxaa dhigan jirtay iskuul baa dhigan jirtay iskuulkee dhigan jirtay albusra ma sha allah magaca هاي مقعة هذا مقعة نسمي wax fool xun aan aad loo qaadan karin baan lagu sameeyay anigu guriyahayga hormadno haweenayga soo shaqtayna aan la qabsaday inta dibna ma celino dharkayga iyo hantidii waxaan wadano laga soo kixiyay ciyaal baa iga maqan maanta baan ahayn hooyada iyo indhoolaha waayeel way maqan tahay kollay dhibaatada iyo dhibkaana soo gaaray intaas oo muslim ummadana maxamed soo gaaray ninkii ka dambeeyay Muuse Biixi buu ahay ilaahay madaxiisa ka shubo ay xoolihii xandadii naga maqnay kollay ilaahay subxaanahu wa ta'ala kala xisaabtamay ubadkii iyo maarta awood bay noo sheegtay ilaahay baa awood leh nin kale awood leh ma jirto intii ku jirtana si nabadgeliya ilaahay ha ka soo saaro intii hadda ka soo baxdayna ilaahay wadankoodii nabad tuulidii ku soo jeedo ilaahay nabadgeliya ku geeyo intii maslaamana loo garqabtay loo gargaardayna ilaahay wax khayr ugu bedelo amiin baan leeyahay waa maasanta